السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا هيئة الصومالي كوميونيتي فونديشن دافها عالم كا ميل كسا أتو كل سجنتين دمانتين وإذا سلام يا بعد السلام ولي وحن كسوغن هاي كام كحليميالي أيام كسوغن هاي ما أنت أو بشو تهاي سجال بش اللوات لوكن لواتني شنطة ما أنتوا تهاي أحد مركان من متمشان إنان مسقولو إيو تبوين aan ka hirgelino waxaan la kulannay maamadan oo jirta da'deeda meeqa sano jirta maamada 107 sano jirta maamada marka maamadan aa u jeedin raashin ma cuntaad maamada mis caana lewa يا راشي يركسور أو budo ah marka insha Allah taala qaxootiga guri agtiisa ah ayaa la dejiyay maamada dad muslimaan siiyay gurigan iyadana malaha sababtoo ah bacdaas dhexdeeda kuma noolaan karta jiingad waay jiingadana iyada malaha marka jiingad oo muslim walaal oo ijaar camal bishi $10 in laga qaado iyadana dadka qaxootiga oo xaliimiyaal ka soo guureen way oo kaam xaliimiyaal imaadeen deegaankeeda xaliimiyaal u ahaa maamadan marka insha Allah taala waxay idin kaga baahan tahay maamadan oo 107 sano jirta taakuleen ay idin kaga baahan tahay hadalkayga waa maqlaysaa laakiin ma ii jawaabi karto mana hadli karto marka maamada waxay ku fiican tahay shanteeda waqti iyadoo saan ah waa ay dukataa marka insha Allah taala qof walba oo muxsin ah maamadan oo wax u qaban kara caanahaas iyo budadaas ay isticmaalayso ama hataa hal qol jiingad u dhisi kara maamadan marka oo ahlul khayr ah hadduu jiro insha Allah taala dhul loogu dhisayna waxaa baxsaday qof ayaa baxsaday oo fi sabiilillaahi ah in loogu dhiso ogolaaday oo maamadan intay adduunyada joogto ay iska sii noolaato marka insha Allah taala khayr ayaan idin rajaynayaa maamadan qofkii garab qaban kara إنه سو قرب قبطه وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.